السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز waxaan macalinayaa ururka ama dhaqaaqa waxaan ahay hal iyo asxaabtii isku soo hawlay inay barnaamijkan soo hagaajiyaan. Buuggan magaciisa waxaa la The Kite Runner ama Soomaaliga si aan u maleeyo inay tahay abitay eriyada ama ciirsadaha abitayda. asxaabta turka wax ku akhriyana ujeedma oo jaziba laha waxaa qoraa reer Afghanistan Mareykan Afghanistan oo magaciisa la Khalid Hussein waa reer Kabul kadibna Mareykanka markii dambe qaab qaxootiya uu ku tagay. buuggu wuxuu ka sheekeynayaa su'aalka noo sheekaahiya labadan nin asxaabta ah wala mid kamid ah isagoo shakhsiyadda ugu weyn uu noqonayo. buugga waxaa lagu jilay ama waxaa laga qoray saddex magaalo oo kala duwan: Kabul oo Afghanistan, California oo Mareykanka ah iyo Peshawar oo ah Pakistan. marka hore buugga waa novel ama waa historical fiction waa taariikhiyaaleed oo ninkan ka qoray wadankaas. buugga raayna waxay soo koobo kadib maxaan aniga ka fahmay ama dad kale aan arkay maxay ka fahmeen iyo sheekada maxaa ka soo baxday qaabkaas raayna u wado. buuggu wuxuu dib loogu celinayaa dhammaadkii boqortooyadii ka jirtay wadanka Afghanistan ee sanadadii 1970-yadii. Amir wuxuu buugga karakteryadooda qof marka magaciisa sheegay baahin doona kansaan oo ahaa iyo kansaan oo ahaa. Amir waa karakter ugu weyn ee buugga. wuxuu ka dhashay qoys iska ladan oo reer Afghanistan abi isagoo kamid ah dadka Afghanistan oo magaalada Kabul ugu magaca dheer. wuxuu saaxiib la ahaa wiil la dhaho Xasan wuxuu ka dhashay reer la dhaho ama qabiil la dhaho Hazara. Afghanistan sida wadankeena kale waxa ka jira dhinacyo qabiilo ama dad kala duwan qabiilo ku jira dad kala duwan anigu dad kala duwan manihin qabiilo ka jira iban dad kala duwan ka jiraan. Hazara marka lagu sheegay inay yihiin asal Mogolistan Turki. riwaayada qaar waxaa lagu sheegaa inay ka yihiin haraagi Genghis Khan oo aan naqaano nin xilliyada kamid ah adduunka soo weeraray ilaa meesha tagay. marka waa in la doonsado lagu shaqeyso idan marka qaar wax barashada wax bartaan oo la ogolaan reerkaas ka soo jeeda. Amina wuxuu ka soo jeeda reerka kale oo aan sheegay inay Afghanistan ugu yihiin. saasoo tahay waa loo dhalinyaro wiil oo ciyaala isoo soo koob iskuul ku nool iyagoo aan fiirinayn kala sareynta qoyska lacagta waxbarashada dhan walba saaxiib bay ahaayeen daacad isku ah isla ciyaara wax isla akhriista wax walba isku sameeya. Amir abi wuxuu iska qof iska qabo macdalku waxa qof ay bal aan isweeninayn laakiin saasoo tahay masaafo ayaa u dhaxaysa isaga wiilkiisa. hooyadiis isagoo yaba way umar raacay isaga marka ma ahayn qof ku soo kala jacaylka hooyadii. Xasan abihi wuxuu ahaa shaqaalaha Amir abihi sidoo kale Xasan shaqaale yar wuxuu ahaa Amir isaga cunto karin jiray dharka u dhaqi jiray u feeran jiray xataa iskoolka alaabta soo qaaday jiray markay qaar. saayada maraso 17kii bishii 1973 Afghanistan waxa la riday boqortooyadii iyadoo meesha jamhuuriyadda ay soo gashay. waxa ay taariikh xun oo dhaciyaalka marka Afghanistan ku nool aysan qiyaasan karin waxa wadankooda ka dhici doona laakiin waxay noqotay marxalad ama xaalad bedeshay mustaqbalkooda dhan oo mugdi u horseeday. waxa wadanka la wareegay jamhuuriyad. sanadna markay jirto wadan in qabiilada waxa jihin dadku laba qaybsamaan qof qabiiladiida iyo qof wixii ku raaxaysanaya. marka waxa jiray ciyaalka markii la xitaa way nagu jirtaa taas oo qof walba gurigiisa wixii lagu soo koriyo weeye. asaf wiil la waa jiray qabiilka Hazariga la dhaho ama qabiilka uu ka soo jeeda Xasan buu nacbaa. marka asaf mar walba wuxuu isku dii jiray inuu dhibo Xasan maalmaha kamid ah baa wuxuu aftuurta Amir oo Xasan saaxiibkii markii dambe waxa soo badbaadiyay Amir oo saaxiibtinimada intuu wax walba ka hormariyay naftiisa u horay inuu saaxiibkii ka soo badbaadiyo ninka kale afduubanaya. xilligaas Afghanistan waxa fasax la gali jiray xilliga qaboobaha ah xaga anaga xagaaga wax ka safar baa fasax galnaa qaboobaha waa fasax la gali jiray Afghanistan. qaboobaha marka Afghanistan caan waxay ku ahayd buugga magaciisa meesha lagu magac daray weeye in la qabto tartamo abitay laga noomay baashan la duuriyo tartamo noocaas la qaban jiray. marka Xasan wuxuu ahaa wiisiga abitaygu ahaa qof aad u yaqaan abitaygu ahaa sanad walbana qaada loogana dambeeya ciyaartaas. sanadaha kamid ah si kama ah si kaliya koobka waxa ku qaaday Xasan laakiin markii dambe waxa laga ogaan doonaa inuu Amir oo saaxiibkii ahaa uu koobka isaga siiyay يعني isaguna uu ciyaaray yiraahdo qaadade saaxiibtinimo heerkaas uu gaarsiinay weeye. markii tartanka la bilaabay Xasan wuxuu bilaabay inuu cayrsado abitaydi maxay marka ciyaarta qaanide waxa taqaanaa abitayda meesha ku dhacayso ugu dambeyn doonto inta saacad qaadanayso waxa laga rabaa awood iyo adkaysi inaad tahay
tii ugu dambeysay intuu soo qabtay isagoo raba inuu geeyo saaxiibka amiir baa dhexda waxaa ka qabanaya asafka sheegana hadda magaca wax badan buu soo noqon doonaa baa dhexda ka qabsanaya ilaa heer ay gaaraan ay faraxumeynayaan iyagoo meesha ku faraxumeynaya baa waxaa arkaya amiir oo raadinaya xasan walaalkii meesha u helin lahaa saaxiibkii meesha u helin lahaa meeshuu ka daawanaya kadibna uu ka dhaqaaqaya yani in qof ka mid ah qofkii kale inuu heer gaarsiiyay uu dadaaliyay kii kalena isagoo oo wax lagu sameeyay intuu arkay buu meesha uga baxay markii dambe sidii waxa ku guuleystay koobkii amiir koobka markuu qaaday championka Kabul weeye abiteeda isagoo yara wax lagu faano weeye aabihii marka boos weyn buu ku yeeshay waa la qadariyay kor baa loo qaaday waa la koolkooliyay xilliga ka mid ah leeshadiisa loo dhigay baa markii la wuxuu sameeyay khiyaamadiisa labaad wuxuu ku sameeyay saaxiibkii isaga oo saacad hadii loo siiyay lacag xawaayo lacag lahaa uu dhigaya qolkii uu degana xasan aabihina uu sheegay in xasan uu xaday alaabtiisa si guriga loo wacay ninka wuxuu ku sameeyay wajigiisa ma arko inuu arko inuu xishoonaya misana lacag kale miya kolba si guriga loo dheereeyo baa wuxuu sameeyay wuxuu lacagtooda saacadda ninka xaday guriga laga ciriyo markii dambe gurigii sidoo kale tagan xasan iyo aabihi cali shan sano kadib waxaa bilowday afghanistan waxaa soo waray sofiyetka midowga sofiyetka waxaana ka bilowday qaxooti waxay raangana meeshan markii afghanistan buugga markii akhrinaya aniga qof kale akhrinaya qof wadan burburay ku nool markuu akhrin doonana soo ka dhageysan doona waxa weey buugan afghanistan baa lagu sheegay laakiin meesha Soomaaliya aan ka akhrinaya yani waxa akhrinaya afghanistan laakiin niyada Soomaaliya kaga imaanaysa maxay qaxooti baa ka dhacaya ciyaalna la isku dagaalaya reer la isku hooseynaya qaxooti markuu ka dhaco qof dhan oo magaalo u shinay magaalada ku weyn ka mid ah daan burtagaya shaqooyinka ka shaqeeyay bilaawaya wadankii waa burburaya caruur noloshoodii baabaaday hooyadana waxba haysan ama toogsanaya xitaa dhul burburay si loo duqeynayo wadooyinka jaban waxa noocaas buu ku balkeenaysaa marka afghanistan baa afka waa akhrinaya laakiin iyada Soomaaliya ku soo dhacaysa qofka akhrin doona baa inta uu dhahaya waxay qaxooti ku kala America abihi California Mareykanka iyada oo meeshaas ka bilaabay abihi inuu ninkii waaweynka ganacsatada inuu shirkad baansin ka shaqeeyo xasanad iskoolkiisa waxbarashadiisa ku dhameystay meeshaas ayuu markii dambe wuxuu guursan doonaa gabar uu dhalay janadaha Afghanistan oo Suuriya la dhaho kadib abihi baa geeriyoonaya halka isagoo maraysan wuxuu ogaanay inuu yahay madalays abihi baa geeriyoonaya madalays buu yahay markaas niyadiisa wuxuu soo dhacay khiyaamadii ama xumaanta ku sameeyay walaalka oo dib taagan ilaa hadda sheekada xagga maraysan oo soo gooyay buugga waqtiga 15 daqiiqo ahayd baa u maleynaya baa waxa la soo hadlaya aabihii saaxiibkii oo Pakistan jooga markaas wuxuu ku dhahayaa mid kamid ah ereyada ugu fiican buugga ku qoran wuxuu dhahayaa hadaa xumaan samaysid mar kale waa fiicnaan kartaa xumaan hadaa samaysid dib u fiicnaan kartaa waa ka toobad keeni kartaa waxan sidii ayuu go'aan wuxuu ku gaarayaa inuu Pakistan u soo saaro Pakistan si uu u raadiyo bal haraagi kale xasan kadib waxa loo sheegay xasan inuu guursaday wiil dhalay kadib isaga xaaskiisiiba ay Taliban dishay Taliban markay wadanka la wareegtay يعني reeraha asariga oo degan Afghanistan dhibaato badan bay u geysteen sidii uu ku ogaanaya in xasan la dilay laakiin wiil uu ka tagay wiilkiisana ay Taliban afduubtay kadib waxa xagga maraso isagoo diiday inuu wiilka raadiyo baabi wuxuu sheegayaa saaxiibka wuxuu sheegayaa in xasan uusan ahayn saaxiibkiis oo ah laakiin in aabihi inuu dhalay وساعتها كلا كدلي مركب قف ديجي سنو يهاي ويلك أديرك وياه إنه راديو سوينو كسيرة سيبو حكاري يا أفغانستان وحنا رادينا إنه ويلك صحيح على مركلة كذب وحسبان يا أسف كل شيء بقى وأفضل بتاعي ويلك حسن سيبو كسب بتبادلنا يا وحنا مركب قدام بيسجين يا أمريكان كا أما كاليفورنيا يسوي هذا كقدام بيسودها يا ciyaar abitida markay noqoto dartii abita isla soo qabanay wiilka yarka buuga koobanta soo intaas buugana ku dheeraada mar waa sheeko qofkii raba inuu akhriyo oo ku raaxaysan doona ana taahaba ana afturkiisa akhriyo ingiriiskiisa ma akhrin qofka akhriya kolba afturka qurux badan oo fudud oo marka akhrinaysid marka qaar ay joojin karo ku qorayahay marka qaar murugo marka qaar farxad marka qaar qofkii beer jilicsan way doona buuga waxyaalaha ka fahmay aniga kow kaashaha dhacdada meesha laga qoray ee Soomaaliya iyo Afghanistan marka qaar meelaha ka masaraadaho anoo aan luqada ma baran letter ma baran ama Soomaali ama Ingiriis wax doonta haatay ama Quraan ma ahi qorada Soomaali maxay wax noocaas u qori laayihiin meeqa qiso wadankeena ka jira la qori karaa jira maxaa loo qori laayahay bay isweydiin doontaa xog ugu filan bay xakeli doontaa Afghanistan
dhanka isirada dhanka wadanka magaalooyinka dhanka dagaalka sokeeye ee ka dhacay weerarkii ay kusoo qaatay Soviyetka iyo waxyaalo kale lamid ah buugga waxaa si cad uga jirta xiriirka u dhexeeya qoyska aabaha iyo wiilka aaba caruurta si wacan aan ula xiriirin marka qaar ka fogeynaya mar walba jecel inuu ciyaalkiisa heer gaaraan laakiin saasoo tahay jacaylka marka qaar aan u muujinayn buugga waxaa ku jirta saaxiibtinimo nooc aan caadi ahayn ya saaxiibtinimo yaraan kasoo bilaabatay qof kale dartii naftiisa u horaya wax walba inuu sameeyo isku dayaya macdaalka isagoo awood badan aan haysan waxaa ku jirta sidoo kale ku sheegay ninka kale isnaga u hagarbaxayn qofkan kale isaga u hagarbaxaya amir saanu ku qiyaasay wuxuu ahaa qof lacabka laga badiyay marka qaar maxay nin lacag la dhalay waxbarashadiisa buugiisa cuntiisa isku saaran yihiin xasan iyo ka soo horjeedkiisa waa ahaa amir sidoo kale waxaa qof ka maseeraya isaga mar badan isagoo waxba haysan dee marka kaliya ama intaa yartaa koobka uu qaado ama marka yarka waxa loo soo gado qof badan ka maseeriyo ahaa laakiin qof isagoo beer jilicsan buu ahaa buugga qofka akhriyo wuxuu ka dhageysan karaa saameynta dagaalka sokeeye uu ku leeyahay wadan inuu burburiyo mustaqbal dhalinyaro caruur hooyooyin iyo dad badan oo aan caadi ahayn wadan taagnaa dhisnaa la soconayay gaareer soconayeen waxbarasho la aadayay isbitaalada caadi ahaayeen oo hal mar dumaya buu ka dhageysan doonaa buugga waxaa kusoo koobayaa labo oraah ama xog oo aan buugga jeclaaday laba xabo mid ka mid waxaa weeye buugga uu ku qoran haddaa akhrisin aan ilaawi doono labada xabo mid ka mid ah uu dhahayo qoraaga Afghanistan caruurtu way ku badan yihiin laakiin caruurnimo ma jirto caruur inay wadan joogto way badan tahay caruurnimada waa nolol kale nolol qof inuu ku noolaado farma ka soo beel caruur guriga hooyadii iskoolkii qofkii si maskaxiya in loo dhiso ma dhar iyo cunto kaliya in la siiyo loo dhiso caruurnimadu marka nolosha noocaas wadankii kama jirto buu kuleeyahay marka Afghanistan ka saar Soomaaliya caruurtu way ku badan yihiin caruurnimo laakiin ma jirto taasaa ka dhageysaday talabaad wuxuu dhahayaa dambi kale ma jirto uu dhahayaa adduunka dambi ma jiro aan ka ahayn tuugnimo dambiyada kale jira dhanna tuugnimo wax soo raaca weeya yani tuugnimo haddii adduunka lagu saari lahaa wax dambi kale ma dhici lahayn buu kuleeyahay qof haddii aad dishid qof baa noloshiisa ka xaday waa dishay nolol adduunka ku noolaan lahaa mustaqbal lahaan lahaa baa ka xaday qofka dishay xaaskiisa ama ninkeeda qof dumar hadday tahay waxaa ka xaday qofka xaaskiisa ama ninkeeda ka xaday ilmo baa aabahood ama hooyadood ka xaday يا فرحة الله قيسان ده هاي قف دم ببرسة وقف دم كحدي قف دي بين وشيبتي قف كحدي أودي لها إنه رنها له قف بين باوشيبتي ما أنت ما عدا صالة ورسوقاته السبول مجا حقيقة على فاتح سوى كلها وحاولت الموت إنك يبيلك جزء وقت ما كانوا مسي حق يقولها إنه رنها له لا قف كحدي قف دي أخياتي أما إسداوم مريسيد waxaad ka xaday awoodii uu lahaan lahaa inuu runta iyo xaqiiqda waxay tahay jirto marka waa taas oo mareelaya tamarna ka go'ay doono qofkii buugga akhriya in qofka waxa ugu weyn oo laga helay tahay ay taas waxa ku soo goobayaa fikrad guud buugga wuxuu ka hadlayo buugga fikrad guud waxa weeye haddii aad qof xumaysid ama wax khaldan ku samaysid jirkaagu marna kuma ogolaan doono inaad raaxaysatid mar walba waxaad soo xasuusan doontaa dembiga iyo khaladka qofka ka gashay marka waxaa kula habboon hal xabo oo kaliya oo ah qofka marka la saado cafi ama qofka si aad abaal kale ugu gudahay inaad raadiso intaas ku soo koobaya